السلام عليكم saaxiibayaal maanta waxaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo sharaxaadda filim lagu magacaabo Water Definer. Filimkuna waxa uu ku bilaamayaa nin sarkaal ah oo Turki ah oo lagu magacaabo Xasan ayaa waxa uu ciidankiisa u diyaarinayaa weerarkii dagaal ee ugu dambeeyay. Isagoo ciidankiisa dhex maraya ayaa waxa uu u dirsanayaa wiil yar oo ciidankiisa ka mid ah diiradu kaga yimid dhufayska. Markii wiilka yari tagay ciidanka waxa soo weeraray cadow kuwaas oo ay soo adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. ugu dambeyn ciidanka Korneyl Xasan waxa ay jabiyeen cadawgoodii iyagoo la wareegay dhufayskii ay ka soo dagaalamayeen. waxay ogaadeen xabadda istabajooga ah ee ka soo dhacaysay dhufaysku inay ahayd qori keebkiisa la dabay isla markaana uu cadawgu meesha ka baxsaday. ciidanka Korneyl Xasan way dabaaldegeen waxayna ku faraxsan yihiin inay jabiyeen cadawgoodii isbahaysiga New Zealand iyo Australia isla markaana loo soo gaabiyay Anzacs. waxay sidoo kale kor u taageen calankooda Turkiga. hadda waxaynu aragnaa wiilkii yaraa inuu soo noqday Korneyl Xasanna uu helay diiradihiisii. sidoo kale nin ciidamada ka mid ah oo lagu magacaabo Jimel ayaa waxa uu goobta ka helay gacanka lagu ciyaaro kubadda cricket-ka. ciidamadu waxa ay ku faraxsan yihiin jabitaanka ay jabiyeen cadawgooda waxayna u dabaaldegayaan guusha ay gaadheen. ugu dambeynna halkaasi ayuu dagaalkii ku soo gabagaboobay. 4 sano kadib nin beeroole ah oo lagu magacaabo Joshua Connor sidoo kale ah biyabaare ayaa waxa uu baarayaa Elbiyood. kadib marka uu ku guuleysto inuu helo waxa uu qabanayaa dhanka iyo gurigiisa. si lama filaana waxa uu arkaya xaaskiisa oo nadiifinaysa kabaha mid ka mid ah 3 wiil oo ay dhashay oo lagu waayay dagaalkii ka dhacay gacanka Globally ee ay fooda isku dareen Turkiga iyo isbahaysiga Australia iyo New Zealand. xaaskiisu waxay u sheegtay inay tahay waqtigii ay xasuusan lahaayeen carruurtooda balse Joshua uu ka diiday waxaana inoo muuqdo asagoo qol keligii fadhiya isla markaana akhriyaya buugaag. marka uu akhriska buugaagta dhammaysto waxa uu u soo gelayaa xaaskiisa oo fadhida qolkii ay seexan jireen ilmadeedu isla markaasina ooyeysa. waxayna u sheegtay waqtigii carruurteeda ugu dambeysay inay tahay 4 sanadood ka hor. isla markaana waxa ay Joshua ku cadaadinaysaa inuu ku fiican yahay baaritaanka balse aanu ku wanaagsanayn inuu carruurtiisa raadsado. hadda Joshua waxa uu galay xusuusta dagaalkii khasaaraha badan geystay ee ka dhacay gacanka Globally. kadib markii uu akhriyay buug xusuusa oo ku saabsan carruurtiisa Joshua waxa ka imanaysa ilmo isla markaana xaaskiisa waxay ka masaxaysaa ilmada waxayna kula talinaysaa inuu haatan iska seexdo waqtigan. markii uu waagu bariyay Joshua waxa uu ku warhelay xaaskiisa oo istishay. kadib marka uu arko inay dhimatay waxa uu gelinayaa laabta isagoo si daran u barooranaya. kadib Joshua waxa uu u tagayaa baadari kiniisadda jooga isagoo ka baryaya inuu u ogolaado inuu kiniisadda agteeda ku aaso. baadarigu marka uu la tashado bulshada waxa uu ogolaanayaa codsiga Joshua. Joshua marka uu aasay xaaskiisa waxa uu ballan kula gelayaa inuu mar soo heli doono carruurtooda kadibna uu garabkeeda ku aasi doono. intaa kadib Joshua waxa uu u safray dhanka iyo Turkiga asagoo ka baadi goobi doona 3diisa inan ee uu waayay. in yar kadib waxaynu aragnaa Korneyl Xasan iyo ku-xigeenkiisa Jimel oo loo galbinayo dhanka iyo halkii uu dagaalku ka dhacay ee Globally. markii ay goobta gaareen waxa ay kula kulmeen in lagu magacaabo Cyril Hughes iyo ilaaladiisa isla markaana ka socda isbahaysiga ay isku dhaceen Turkida. Cyril Hughes waxa uu ka codsaday Korneyl Xasan in ay ka caawiyaan baaritaanka iyo helitaanka askartii kaga dhimatay isbahaysiga goobtan sida inay la baaraan xabaal wadareedyo aasaar kale iyo wixii la mid ah. sidoo kale Korneyl Xasan waxa uu tilmaamay iyaga qudhoodu inay goobtan ku waayeen askar fara badan. dhanka kale Joshua waxa uu ku jiraa safarkiisii uu ku imanayay Turkiga. inta uu safarka ku guda jiro waxa ku soo dhacaysa xusuus ah mar uu carruurtiisa ka badbaadinayay danab. markii uu Joshua soo gaadhay Istanbul waxa ka hor yimid nin iyo wiil yar iyagoo u soo bandhigaya inuu ku nagaado hoteelkooda balse Joshua waa uu iska diiday. kadib Joshua nin askari ayaa waxa uu weydiinayaa sida uu ku tagi karo Globally balse askariga ayaa waxa uu u sheegayaa inaan goobtaasi la tagi karin amar la'aan. inta uu askariga la hadlayo Joshua waxa shadadiisa la cararaya wiilkii yaraa. kadib Joshua waxa uu ka daba cararayaa wiilkii yaraa ilaa ma ay isla gaadhaan hoteelka. Joshua waxa hoteelka ku soo dhaweynaysa gabadh lagu magacaabo Aisha oo dhashay wiilka yar oo lagu magacaabo Orhan. kadib Aisha markay ogaato inuu yahay nin Australian ah waxay u sheegaysaa inaanu qol ka banaanayn hoteelka. Aisha seedigeed oo lagu magacaabo Umar ayaa waxa uu ka hor imanaya hadalka Aisha waxaana uu ku amrayaa Orhan inuu geeyo Joshua qol ka mid ah hoteelka. intaanay qolka gaadhin Joshua waxa uu ka codsanayaa Orhan inuu siin doono lacag haddii uu bari ka geeyo xafiiska difaaca ee dalka. kadib Orhan waa uu ka aqbalayaa.
in yar kadib Joshua asagoo maabka dalka eegaya waxaa ku soo garaacday albaabka Aisha si ay u weydiiso baahiyihiisa. Markii ay wax yar wada hadlayeen, Joshua waxa uu sheegay Aisha inuu u baahan yahay inuu tago Globally, isla markaana uu doonayo inuu fasax ka soo qaato xafiiska difaaca dalka. hase ahaatee Aisha waxay u sheegtay inaanu Orhan geyn karin xafiiska difaaca. Subaxii xigtay waxaa inoo muuqda Joshua oo tagay xafiiska difaaca, isla markaana waxa uu ka codsaday in loo ogolaado inuu tago Globally si uu uga raadiyo saddexdiisa inan ee uu waayay haddii ay dhinteen iyo haddii nool yihiinba. balse waa uu ka diiday ninkii xafiiska maamulayay. Joshua waxa uu tusay sawirradii carruurtiisa, taasoo ah sababta uu u doonayay inuu tago Globally, balse taasi wax saameyn kuma yeelanin ninkii xafiiska maamulayay. kadib waxaa inoo muuqata Joshua iyo Orhan oo dabadda lugeynaya, iyagoo dhex soconaya mudaharaad ay sameynayaan dad Turki ah. Orhan waxa uu Joshua soo tusiyay masaajid qurux badan. kadib Joshua waxa uu la dhaxsan yahay qaabka loo dhisay masaajidka. markii ay ku soo noqdeen hoteelka, Aisha waxay ka xumaatay kaxaynta uu kaxeeyay Orhan Joshua. subaxii markay gaadhay, Aisha waxay diyaarinaysaa quraac ay u geynayso Joshua. isla markaana Joshua waxa su'aalo weydiinaya aabaha dhalay Aisha, balse Joshua ma fahmayo maadaama uu odaygu uu ku hadlayo afka Turkiga. markii ay u keentay Aisha quraacdii, waxa uu u sheegay inaanu doonaynin noocan, isla markaana ay u keento beed la kariyay. Aisha waxay dib ugu noqotay kitchadii si ay u samayso dalabkiisa. Aisha kitchada ugu soo galay Umar asagoo kala hadlaya shaqadeeda. kadib Aisha markay ay dib ugu soo noqotay Joshua, waxay u turjumaysaa su'aalaha uu weydiinayo aabaheed, oo ay ka mid yihiin su'aalo ku saabsan xaaskiisa Joshua. Joshua waxa uu u sheegay inay xaaskiisii dhimatay, isla markaana uu leeyahay 3 wiil oo uu dhalay. kadib Aisha waxay ogaanaysaa xaqiiqda iyo sababta uu u doonayo inuu aado Globally. kadib waxay u sheegaysaa si uu u tago Globally inuu mid ka mid ah kalluumaysatada yaryar ee doonyaha wadata uu siiyo laaluush, isla markaana uu sidaasi ku tago. Joshua markii uu ka soo baxay hoteelka, waxaa ka soo daba cararay Orhan waxaana uu u dhiibay sawir, isla markaana waxa uu tilmaamay inuu yahay aabihii, waxaana uu ka codsaday inuu uga soo raadiyo goobta uu tagayo. Joshua waxa uu la amakaagay arrinkan, waxaana uu ogaaday inaanu Umar dhalin wiilkan yar, isla markaasina uu yahay adeer. intaa kadib, Joshua doontii uu u raacay Globally waxaa aragtay askartii joogtay goobta, isla markaana waxa ay qabteen Joshua iyagoo u geeyay Cyril Hughes oo ka socday dhanka isbahaysiga. kadib Joshua waxa uu u sharaxayaa Cyril Hughes iyo Cornel Xasan arrinta uu u yimi goobta iyo arrimo ku saabsan carruurtiisa uu la'yahay. kadib Joshua markii uu soo saaray buug xasuusa, waxaa ka soo dhacay sawir, isla markaana waxa uu tusayaa Cornel Cyril Hughes goobta uu u malaynayo inay ku dambeeyeen. hase ahaatee Cornel Xasan waxa uu ka qaaday dhulka sawirkii, isla markaana waxa uu la shogay markii uu aqoonsaday sawirka. sawirkuna waxa uu muujinayaa mid ka mid ah inamada uu dhalay Joshua oo lagu magacaabo Arthur. kadib Cornel Cyril Hughes waxa uu u ballan qaaday Joshua inay u qaban doonaan wax kasta oo ay awoodaan, hase ahaatee aanay suuragal ahayn inuu ku sii sugnaado goobtan. kadib waxa isu yimi Cornel Xasan iyo ku-xigeenkiisa Jamal iyo sidoo kale Cornel Cyril Hughes, iyagoo ka hadlaya arrinta ninkan lagu magacaabo Joshua. Cornel Xasan waxa uu u soo jeediyay Cyril Hughes inuu aqbalo arrinta ninkan, isla markaana uu la baadi goobo carruurtiisa, maadaama uu yahay shakhsiga qura ee danaynaya inuu helo carruurtiisa ee ku sugan goobtan. isla markaana waxay isku dayeen inay la baadi goobaan Joshua aasaarta iyo raadka carruurtiisa, waxayna u qaadeen Joshua dhanka iyo goobtii uu dagaalku ka dhacay. kadib Joshua marka goobta la geeyo, waxa uu gelayaa xusuusta ah 3diisa wiil oo dagaalka ku jira, isla markaana lagu kala magacaabo Arthur, Edward iyo Henry. dhammaantood waxa ay ku ficnaayeen dagaalka, isla markaana waxay isku dayayaan inay jabiyaan ciidamada Turkida. kadib waxaa ka badbaadaya ciidamada Turkida askariga ku-xigeenka oo ah Cornel Xasan laguna magacaabo Jamal, isagoo iska dhigay inuu dhintay. dagaalkuna waxa uu dhammaaday iyagoo saddexdooduba wada socda, balse Edward ayaa waxa uu ku istaagay miino dhulka lagu rakibay, isla markaana waxa uu u dhaawacmay si halis ah. kadib waxa uu ka codsaday walaaladii inay iskaga tagaan goobta, balse waa ay diideen si ay u badbaadiyaan. taasina waxa ay sababtay in la waayo, balse weli lama hubo inay dhammaantood dhinteen. intaa kadib askarta iyaga oo baadhaya aasaartoodii haddii ay dhinteen,
askari askarta ka mid ah ayaa waxa uu helayaa qoorgashi. kadib askartu waxa ay aqoonsadeen inuu lahaa mid ka mid ah inamada uu dhalay Joshua. Cyril Hughes ayaa waxa uu u dhiibayaa Joshua qoorgashigii, isla markaana waxa uu u tilmaamayaa in dhimashada inamadiisa uu sabab u yahay Korneyl Xasan, taas oo uu la jeedo markii ay iskaleen ciidamada isbahaysiga iyo kuwa Turkidu. Xasan ayaa waxa uu hogaamiye u ahaa ciidamada Turkida. kadibna halkaasi ayaa waxa uu ku laayay inamadaadii. taasina waxay sababtay inuu Joshua soo weeraro Korneyl Xasan. kadib ku-xigeenkiisa Jamel ayaa waxa uu ka difaacayaa Joshua, isla markaana waxaa Joshua kaxaynaya ciidamada uu hogaaminayo Korneyl Cyril Hughes ee isbahaysiga. in yar kadib Korneyl Cyril Hughes haddana waxa uu soo gaarsiiyey Joshua qoorgashi kale oo ay askartu heleen, balse waxaanay weli helin qoorgashigu uu xidhnaa inamadiisa ka ugu weyn ee lagu magacaabo Arthur. hase ahaatee Joshua waxa uu aaminsan yahay in aanay inamadiisu kala tegin, isla markaana kala la'yahay aasaartiisu ay ku dhowdahay kuwan kale. intaa kadib askariga lagu magacaabo Jamel, isla markaana ku-xigeenka u ah Korneyl Xasan, ayaa waxa uu soo gaarsiiyey Xasan warqad fariinteedu ay tahay inay ciidamada Giriiggu qabsadeen magaalada lagu magacaabo Smyrna. sidoo kale waxa uu tilmaamay in aanay waxba ka gelin arrintan ninkan Joshua, balse Korneyl Xasan ma uu ka jawaabin arrintan, waxaana uu soo gaadhay goobta uu joogo Joshua. sidoo kale Joshua waxa uu ka raali geliyey Korneyl Xasan ficilkii uu sameeyey shalayto. kadib Korneyl Xasan waxa uu tusayaa liis uu ku qoran yahay mid ka mid ah inamada uu dhalay Joshua oo lagu magacaabo Arthur, isla markaana waxa uu tilmaamayaa inuu ka mid yahay maxaabiis xidhan. arrintani waxa ay rajo gelisay Joshua, isla markaana waxa uu rajaynayaa inuu nool yahay wiilkii ugu weynaa wiilashiisa. kadib waxa ay noo muuqata Joshua oo dib ugu noqday hoteelkii uu ka deganaa Istanbul, isla markaana hoteelka waxaa ka jirta xaflad. in yar kadib Orhan ayaa waxa uu arkay Joshua, isla markaana waa uu u yimi, waxaana uu weydiinayaa in uu soo arkay aabihii in kale. si ahaatee Joshua waxa uu u sheegay in uu waayay, isla markaana uu ku guuldaraystay in uu helo. Caaisha ayaa aragtay waxayna u soo dhaqaaqday dhanka Joshua, isla markaana waxay u sheegtay in xafladan loo dhigay wiilkeeda Orhan oo la guday. sidoo kale Cumar oo adeer u ah Orhan ayaa waxa uu arkay Joshua, isla markaana waa uu soo dhaweeyay. maalintii ku xigtay Joshua waxa uu dib ugu noqday xafiiskii difaaca, kadibna waxa uu la kulmay Korneyl Xasan isagoo ka codsanaya caawimaad. hase ahaatee Korneyl Xasan waxa uu u sheegay inaanu caawin karaynin, sababtuna waxay tahay culayska iyo cadaadiska uu dalkoodu wajahayo. mid ah ciidanka oo joogay goobta ayaa waxa uu weydiiyey Joshua baasaboorkiisa. kadib waxa uu ka qaaday baasaboorkii waxaana uu u gudbiyey qaybta ka sarreysa. intaa kadib Joshua waxa lagu amray inuu waddanka si degdeg uga baxo, balse Joshua waxa uu ka codsaday maamulka xafiiska in meel loogu sheego wiilkiisa oo loo sheegay inuu xidhan yahay. hase ahaatee maamulku waxa ay tilmaameen inuu wiilkiisu dhintay, isla markaana waxay kula taliyeen inuu waddanka degdeg uga baxo. kadib Joshua askari ayaa dabadda u soo saaray. markii ay dabadda u soo baxeen, askarigii ayaa waxa uu u sheegay inuu ka caawinayo inuu u baadho dukumentiga maxaabiista. Joshua waxa uu u mahadceliyay askarigii, balse waxay si lama filaan ugu soo baxeen Korneyl Xasan oo ku jira meel dhuumasho ah. kadib waxa uu ku adkaystay Korneyl Xasan in aanay ka caawin karin Joshua arrintan. maalintaa ku xigtay Joshua waxa uu la ciyaarayaa Orhan. sidoo kale Caaisha oo ah gabadha dhashay Orhan iyo Natalia oo saaxiibadeeda waxa ay ka hadlayaan arrinta Joshua. kadib Joshua, Orhan, Caaisha iyo Natalia waxay u soo baxeen dibadda iyagoo waqti ku qaadanaya. intaa kadib Joshua iyo Caaisha waxay ka sheekaysanayaan sheekooyin ku saabsan noloshooda. markii ay kala tageen habeenkii, Caaisha waxay ka dhex ooyeysaa qolkeeda. kadib subaxii, Caaisha waxay isu diyaarinaysaa inay isguursadaan Cumar oo ah Orhan adeerkii. Joshua weli wax xog ah kama helin wiilkiisa oo uu u tuhmayo xabsi. dhammaan dukumentiyadii maxaabiistana waa la gubay. Caaisha waxay koob kafee ah u keentay Joshua, isla markaana waxay ka sheekaysanayaan arrimo ku saabsan dhaqanka iyo sida uu kafeegu firfircoonida u geliyo jirka bini'aadamka. kadib Caaisha markii ay kijada dib ugu noqotay waxa uu soo galay Cumar, isla markaana waxay u sheegtay in aanay diyaar u ahayn inay isguursadaan. kadib Cumar waa uu ku xanaaqay waxaana dhex maray labadooda dagaal gacan ka hadal ah. intaa kadib Joshua ayaa soo kacay waxaana uu dhanka u tuuray Cumar isagoo u hiilinaya Caaisha. kadib Caaisha waxa ay ku xanaaqday Joshua iyadoo ku eedeynaysa inuu arrintaas si xumeeyay, isla markaana waxa ay ku tiri iskaga tag hoteelka.
Joshua markii uu sii baxayay waxa uu la kulmay Orhan oo ridda ku sugaya. Orhan ma doonayo inuu Joshua goobta ka tago, hase ahaatee Joshua waxa uu siiyay buug yar waxaana uu iskaga tegay hoteelkii. Markii uu Joshua dibadda u soo baxay waxa helay niman uu watay Cumar, isla markaana waxa ku dhex maray dibadda dagaal culus. In yar kadib waxa ku soo baxay askariga lagu magacaabo Jebel, waxaanu soo gabagabeeyay dagaalkooda. Intaa kadib waxa inoo muuqata Joshua, Korneyl Xasan iyo ku-xigeenkiisa Jebel oo goob wada jooga. Askariga Jebel ayaa waxa uu sheegay Joshua inuu garanayo wiilkiisu halka uu ku xidhan yahay. Kadib waxa inoo muuqata iyaga oo ku jira meel qarsoodi ah. Kadibna waxa dhex martay saaxiibtinimo Korneyl Xasan, ku-xigeenkiisa Jebel iyo Joshua. Intaa kadib Joshua waxa uu soo noqday dhanka hoteelkii isaga oo soo qaadanaya shadad uu kaga yimi markii ay soo weerareen nimankii Cumar la socday. Markii uu soo gaadhay hoteelka, Aisha waxa ay ka raali gelisay ficilkii ay ku samaysay shalay markii uu u hiilinayay. Kadibna waxa ay u keentay cunto uu cuno. Intii aanu waagu baryin, askar ayaa waxa ay soo weerartay hoteelka si ay Joshua u soo qabtaan isla markaana ay ugu celiyaan dalkiisii. Balse Aisha ayaa waxa ay ka caawisay Joshua inuu ka dhunto askarta isla markaana uu ka baxsado goobta. Kadib Joshua waxa uu dib ugu noqday goobtii qarsoodiga ahayd ee ay joogeen Korneyl Xasan iyo ku-xigeenkiisu. Isla markaana waxa uu ka codsaday in ay raacaan oo ay la raadiyaan wiilkan uu la'yahay. Tii ay subax noqotay waxa inoo muuqata saddexdooda oo fuulaya tareen. Kadib markii ay gudaha galeen, Jebel ayaa waxa uu tusayaa Joshua gacanka lagu ciyaaro kubadda cricket-ka, taas oo uu ka dhaxlay dagaalkii dhex maray Turkiga iyo isbahaysiga Ansekis. Hadda Joshua waxa uu barayaa labadiisa saaxiib qaabka loo ciyaaro kubadda cricket-ka. In yar kadib Korneyl Xasan ayaa waxa uu arkayaa qiiq ka baxaya magaalo u dhow. Sidoo kale waxa uu arkayaa dad barakacaya. Kadib tareenka ayaa waxa uu u istaagayaa si dhaqso ah, waxaana lagu soo qaadayaa weerarkaas oo ay soo qaadeen ciidamo Greek ah. Kadib waxa ay leynayaan qof walba oo saaran tareenka. Kaliya waxa ay ka tegayaan saddexdooda. In yar kadib Korneyl Xasan ayaa waxa uu u sheegayaa ciidamada Greek in aanay dilin Joshua isla markaana uu yahay maxbuus. Kadib Joshua waxa ay u saarayaan gooni isla markaana waxa ay isku dayayaan inay dilaan Korneyl Xasan iyo ku-xigeenkiisa. Joshua waxa uu difaacayaa labadiisa saaxiib isaga oo isticmaalaya gacanka lagu ciyaaro kubadda cricket-ka. Intaa kadib waxa si lama filaan ah u dhintay askariga lagu magacaabo Jebel. Kadibna waxa meesha ka baxsaday Joshua iyo saaxiibkii Korneyl Xasan iyaga oo isticmaalaya fadhi ay leeyihiin ciidamada Greek. Wax yar kadib waxa ay ku nasteen meel markii ay ka soo fogaadeen ciidamada Greek. Kadib Korneyl Xasan waxa uu u ballan qaaday Joshua in uu la raadin doono wiilkiisa ilaa maayo inta uu ka helayo. Waxayna soo gaareen goob magaalo ah. Hadda Joshua waxa uu arkay marwaxadda laydhka ka dhalisa dabaysha, taas oo hore ugu arkay riyo. Kadibna waxa uu sii waday raadinta wiilkiisa lagu magacaabo Arthur ilaa maayo uu ka helay. Markii ay heleen kadib, Arthur waxa uu weydiiyay aabihii xaaladda hooyadii. Kadib Joshua waxa uu sheegay in ay dhimatay, taas oo Arthur ku keentay qalbi jab. Kadib Joshua waxa uu ka codsaday wiilkiisa Arthur in ay gurigoodii isu raacaan, balse Arthur waa uu ka diiday arrintan maadaama oo ay hooyadii dhimatay. Intaa kadib Arthur waxa uu aabihii uga warramay qaabkii ay walaaladii u dhinteen, isla markaana waxa uu tilmaamay in uu gacantiisa ku dilay walaalkii Edward, sababtuna ay ahayd in uu soo gaaray dhaawac halis ah oo ay soo gaarsiisay miino, isla markaana aanay suuragal ahayn inuu ka kaco. Hadda Joshua waxa uu dareemayaa murugo waxaana uu eedda saarayaa naftiisa maadaama uu asagu mas'uuliyadda lahaa in ay carruurtiisu galaan dagaalka. In yar kadib waxa ay maqlayaan sanqadhaha xabad goobta ka dhacaysa. Kadib Korneyl Xasan ayaa waxa uu u sheegayaa inay ciidamada Greek meesha ku soo socdaan isla markaana uu goobta ka tagayo. Sidaa awgeedna waxa ay sii kala qaadanayaan macsalaameyntoodii u dambeysay. Hadda Korneyl Xasan meesha waa uu ka baxsaday. Joshua iyo wiilkiisuna waxa ay u dhaqaaqeen dhanka buurta iyaga oo kaga gabanaya xabadda. Kadib waxa ay ku soo baxeen ceel weyn oo buurta ku hoos yaalla kaas oo biyaha ku dara badda. Kadib Arthur waxa uu aabihii kula taliyay inuu ceelka isku tuuro si uu badweynta ugu daro isla markaana uu sidaasi ku badbaado. Balse Joshua waa uu ka diiday arrintan waxaana uu u sheegay inay wada dhimanayaan ama wada noolaanayaan. Kadib waxa ay labadooduba si wada jir isugu tuureen ceelka. Ceelkuna waxa uu ku darayaa badweynta, sidaana waxa ay kaga badbaadeen ciidankii Greek. 3 casho ka bacdi waxa ay noo muuqataa Arthur iyo aabihii oo yimi Istanbul.
hadda Arthur waxa uu ka xiiranayaa ra'iisle ku yaala Istanbul. in yar kadib Joshua iyo wiilkiisu waxay aadeen dhanka iyo hoteelkii Caaisha. Orhan ayaa waxa uu si lama filaan u arkay Joshua, isla markaana waxa uu ku soo booday laabtiisa isagoo farxad dareemaya. kadib Orhan iyo Natalia waxa ay kaxeeyeen Arthur iyagoo soo tusay qolkii uu aabihiis seexan jiray markii uu deganaa hoteelka. markii ay Arthur qolka geeyeen, Natalia waxa ay u sheegtay Joshua in ay Caaisha dabadda joogto isla markaana ay u adeegayso macaamiisha hoteelka. Joshua waxa uu degdeg ugu soo baxay dhanka dibadda isagoo Caaisha indhaha ku dhuftay. kadib Caaisha waxa ay u keentay koob kafee ah, isla markaana waxa ay dib ugu noqotay macaamiisha kale si ay ugu adeegto. filimkuna waxa uu ku dhamaanayaa Joshua iyo Caaisha oo si farxad leh isu eegaya, isla markaana soo xasuusanaya wada sheekooyinkoodii hore. fadlan daawade haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar channelka, muuqaalkana like saar. mahadsanid daawade.